salaamu ullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa kowda bisha abril sanadka 2026 madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in dowladda Iran ay u soo gudbisay codsi la yaab leh isla markaana ay ku dhow yihiin buu yiri inay isdhiibaan inkasta oo wargeysida waaweyn ee ka soo baxa galbeedku ay ku tilmaamayaan gabadhaclaynta Trump iyo isburinta weerihiisa inay noqonayaan kuwa mashaakil sii abuuraya waxaana ay ku tilmaamayaan in xitaa aan la aqoon istiraatiijiyadda dagaalka uu ku wajahayo gobolka bariga dhexe ilaa iyo 50,000 oo ka mid ah askarta Mareykanka ayaa lagu soo warramaya xilligan inay ku sugan yihiin gobolka bariga dhexe waxaana la filayaa maalinta Jimcaha ee nagu soo aadan in dagaalka uu galo waji cusub xilli Trump ciidamo aad u fara badan oo ku daldalayo gobolkaasi warar soo baxaya waxay qeexayaan in cabsi laga muujinayo xaaladda guud ee hadda ka taagan dagaalka iyo isbedelada iyadoo wasiirka muraha dagaalka ee waddankaasi Pete Hegseth uu ku dhawaaqayo in ay doonayaan isbedel caalamku uu ka yaabo dowladda Iran ayaa mar kale looga digay in aanay loo ogolaan karin samaysashada hubka nuclearka iyadoo Trump arrintan uu ka dhiganayo marmarsiyo kale haddii weerarada dhulka la qaado maxay tahay istiraatiijistayaashu waxay ka degayaan saraakiil sare oo khubaro ah oo ka qayb galay dagaaladii Vietnam Iraq iyo Afghanistan ayaa ku warramaya in Mareykanku uu lugaha la geli doono dagaal riiqiisu ay dheeraanayso qaybo kala duwan oo ka mid ah gobolka bariga dhaxana maanta duqeymo ayaa asqada la isaga dhigay iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in xiisadu ay sii kululaato mid ka mid ah maraakiibta shidaalka qaada oo maraya biyaha qaliishkana dowladda Iran ayaa weerar ku qaaday Mujtaba Khamenei waxa uu diray fariin ku socota dunida isagoo oranaya dagaalkan haddii aan Trump gacmaha laga qaban wixii ka dhaca waa la arki doonaa qodobadaasi iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan idinla wadaagayaa khiyaarta inala socotay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo maasan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in waddanka Iran ay ku dhow yihiin inay isdhiibaan marka la fiiriyo dagaalada soconaya iyo xiisadda meesha ay hadda taagan tahay waxa uu dhinaca kale aad u ammaanay hogaamiyaha talada waddanka la wareegay ee Ayatollah Mujtaba Ali Khamenei waxa uu yiri waa nin aad u caqli badan oo garaad sareeya marka loo fiiriyo hogaamiyaashii kale ma aha nin meel ku dhaga hadallada loogama baran Trump waxana uu ku soo qoray bartiisa Truth Social oo ah meesha uu ku baahiyo fariimaha dagaalka iyo hagida adduunkaba telefishinka Al Jazeera oo arrintan xiganaya waxa uu tilmaamayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay hadda uun cadsatay buu yiri xabad joojin oo la gaaray waqtiga ay isdhiibi lahayd xilli dagaalka u dhaxeeya labada dhinac uu sii xoogaysanayo waxana uu intaasi ku daray in hoggaanka cusub ee Iran uu yahay mid caqli badan kana dabacsan hogaamiyaashii hore ee guud ahaanba waddankaasi muddada ka talinayay oo isla markaana uu ka mid yahay hogaamiyihii sare ee la dilay Ayatollah Ali Khamenei Trump ayaa qoraal uu ku baahiyay barta Truth Social ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono weerarada ka dhanka ah Iran inta la furayo buu yiri marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz kaas oo door weyn ku leh ganacsiga shidaalka caalamka waxa uu xusay in Washington aysan tixgelin doonin xabad joojinta kaliya ay tixgelin doonto buu yiri xabad joojinta kaliya marka maraakiibtu ay si xura uga gudbi karaan marinbiyoodkaasi isagoo sheegay waxaan sii wadaynaa duqeymaha ilaa inta si buuxda aan u xakamayn doono guud ahaanba waddankaasi iyo horumarkiisa dhinaca kale Trump waxa uu ka hadlay arrimaha nuclearka xilli 24 saac ee la soo dhaafay khubarada fiisigiska ee baratay nuclearku ay ka digayeen in Trump uu dab ku dheelayo kaas oo gubi doono guud ahaanba caalamka haddii la weeraro xarumaha kala duwan ee nuclearka sida Fordo, Isfahan iyo Natanz taas oo noqonaysa meel dunida saameyn weyn ku yeelan karayso sida khubaradu ay tilmaameen laakiin Trump waxa uu leeyahay Iran ma heli doonaan hub nuclear isla markaana Mareykanku waxa uu si dhow ula socon doonaa
dhaqdhaqaaqyada nuclearka waddankaasi inagoo ku qiimayn doona buu yidhi dayax gacmeed. Trump waxa uu tilmaamay in ay weli jiraan bartilmaameedyo military oo ku haray gudaha waddanka Iiraan, isla markaana ay suuragal tahay saacadaha soo socda in si guud loo duqayn doono. hogaamiyaha dalka Mareykanka ee ku jira dagaalka uu sida ciyaarta ku galay Donald Trump ayaa lagu soo warramayaa inuu si ba'an u dhaliilay wadamada ku bahaysan gaashaanbuurta NATO, waxna uu ku dhawaaqay in ay suuragal tahay in waqtiga ugu dhow ay ka bixi karto Mareykanku ama uu ka bixi karo isbahaysigaasi maadaama dhinacyadu ay taageeri waayeen waddankiisa. Trump ayaa mar kale dhaliilay NATO isagoo ku sheegay inay si dhab ah ay uga fiirsanayaan Mareykanku inuu ka baxayo isbahaysigaasi. Waxa uu ku eedeeyay in qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ay taageero ku filan siin waayeen howlgalka military ee waddanka Iiraan. warbaahinta caalamiga ayaa sheegaysa in maamulka Trump uu dirayo fariimo iskhilaafsan oo ku saabsan siyaasadda waddankaasi dagaalka uu kula jiro waa Iiraan, iyadoo warbixino gaara ay tilmaamayaan in uu jiro qorsho cad oo joogto ah kaas oo dhinacyadu ay si weyn isugu hayaan gobolka bariga dhexe. dowladda Pakistan ayaa weli ku dadaalaysa sidii xal looga gaari lahaa dagaalka sii dheeraanaya ee mustaqbalka saameynta xoogga leh yeelan kara. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wargeysyada waaweyn ee galbeedku waxa ay ku tilmaamayaan inaan la fahmi karin qorshaha dagaalkan uu ku wajahayo, iyagoo tilmaamay 3 wargeys oo kala duwan in siyaasaddan ay tahay mid ku talagala oo ay ka shaqaynayaan sirdoonka iyo inay tahay mid la xiriirta shakhsiyadda qofeed ee Trump oo maalinba gelin bacay noqonaya. waxay tilmaameen marka la eego xaaladda dagaalka iyo saadaasha nabaddu inaanay noqon karin mid la isku halayn karo. sida lagu daabacay majalada The Axios ee Mareykanka ayaa muujinaya in madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu dirayo fariimo iskhilaafsan oo ku saabsan siyaasadda dagaalka, taasi oo keentay jahwareer gudaha maamulka Mareykanka iyo sidoo kale suuqyada weyn ee caalamiga oo haatan si weyn u gabadhaclaynaya. saraakiil Mareykan iyo la taliyaal sare oo si dhow ugu dhow Trump ayaa sheegay in hadalladiisa iyo qoraaladiisa gaar ahaan kuwa uu ku daawaco bartiisa Truth Social ay mar badan noqdeen kuwa degdega oo aan qorshe cad ku dhisnayn. mid ka mid ah la taliyaashiisa sare ayaa yidhi ugu dambeyn cidna si dhaba uma ogaan karto waxa uu Trump ku fakarayo iyo ujeedooyinka uu ka damacsan yahay dagaalkan. warbaahinta ayaa tilmaamaysa in maamulka Trump uu lahaa qorshe kooban oo kaliya toddobaadkii ugu horreeya dagaalka, balse wixii ka dambeeyay ay bilaabeen inay qorshahan sii sameeyaan iyagoo ku sii soconaya dagaalka, taas oo ka baxsan ahdaaftii iyo yoolalkii u dheganaa baa layidhi aqalka cad. si kastaba ahaatee xubno badan oo ka tirsan maamulka ayaa aaminsan in jahwareerka uu yahay mid ulakaca si loo geliyo cadowga iyo xulufada labada dhinac xaalad hubanti la'aana oo Mareykanka kaliya ay noqonaysa cidda iskale aragtiyada ugu dambaysa inay jaangoyso. senator Mareykana oo lagu magacaabo Graham ayaa tilmaamay in tani ay tahay ujeedada aan qofna hubi karin waxa uu Trump raadinayo. hase haatee wasiirkiisa dagaalka Pete Hegseth ayaa ku dhawaaqay in marka horeba aysan muhiim ahayn in la fahmi karayo hogaamiye sida Trump oo kala hogaamin kara dalka ugu weyn ee adduunka. ikhtiyaaro isdiidan ayaa noqonaya waxa ugu weyn ee hadda keenaya khilaafaadka iyo weliba warbaahinta dunidu inay si weyn u wareeraan. inkastoo hadallada Trump ay mararka qaar muujinayaan inuu diyaar ugu yahay kordhinta weeraro military, haddana warbixinadu waxay sheegayaan in kulamada gaarka ah ay muujinayaan rabitaano ah in si degdega loo soo afjaro dagaalka, isla markaana guulo lagu dhawaaqo ilaa 3 toddobaad gudahood. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu ka fiirsanayo weeraro culus oo ugu dambeeya dalka Iiraan inuu ku qaado haddii ay wada hadallada noqdaan kuwa fashilmay ilaa laga gaarayo guud ahaanba 6 bisha April ee hadda aynu bishan aan hadda ku guda jirnay April. hadallada Trump iyo weliba istiidooyinka dagaalka waxa ay si weyn u saameynayaan suuqyada caalamka, gobolka bariga dhexe iyo gudaha waddanka Mareykankaba sida ay khubaradu tilmaamayaan.
qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn ee dunidu waxa ay muujinayaan walaac laga qabo maalinta Jimcada ee soo socota Trump in uu samayn karo mid ka mid ah weeraro xajmigooda uu culus yahay oo lagu qaado gudaha waddanka Iran. 50,000 oo ka mid ah askarta Mareykanka ayaa ku sugan gobolkaasi hadda dagaaladu ay ka socdaan, laakiin midda laga walaacayo waxay tahay inuu weeraro xeelasha shidaalka iyo weliba jasiiradaha muhiimka u ah dowladdaasi. khubaro sare oo ka soo shaqaysay dalalka Ciraaq, Vietnam iyo Afghanistan ayaa ku dhawaaqaya dagaalkan haddii dhulka ah la galo in ciidamada Mareykanku ay si degdeg ah ku qabsadaan karaan meelo badan. hase ahaatee waxa ka dhalan kara ay tahay dhigbax ballaaran oo Mareykanku wajahi doono maadaama dagaalku noqon karo mid sii laba lixaadsada. wararka qaar waxay tilmaamayaan sida uu qorayo wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska in dhaqanka madaxweyne Donald Trump uu yahay mid lagu tilmaami karo mugdi hub lagu dhaxsito oo aan mustaqbalkiisu cadayn, taasoo macnaheedu yahay in hadalladiisa isdiidan ay yihiin kuwa iska yimid iyo weliba inay yihiin kuwa xeelad loo adeegsanayo oo saadaasha bixin kara dagaalka inuu aad u dheeraado. wargeyska kale ee The Economist lagu magacaabo ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa aragtidaasi ka duwan bixiyay, isagoo sheegay in jahwareerka jira uu muujinayo in aanu jirin qorshe cad oo la isku raacsan yahay gudaha maamulka Trump uu hogaamiyo iyo guud ahaanba aqalka cad. warbixinada waxay sidoo kale tilmaamayaan in Mareykanka uu si weyn u kordhiyay joogitaankiisa militari ee gobolka Bariga Dhexe, iyadoo lagu qiyaasayo in ka badan 50,000 oo askari in la geeyo gobolka, isla markaana ay socdaan boqolaal duulimaadyo militari oo dheeraad ah, taasi oo qaadi karaya weerarkan inuu sii xoogaysto. waxaa la qorsheynayaa qabsashada jasiiradda Crack Island inay noqoto bartilmaameedka istiraatiijiga maadaama inta badan dhaqaalaha waddanka Iran uu ku tiirsan yahay oo 90% shidaalka waddankaasi laga dhoofiyo. falanqeeyaashu waxay tilmaamayaan haddii howlgalka militari la qorsheeyo waqtiga ugu habboon inuu noqon karo xilliyada ay xiran yihiin suuqyada waaweyn ee caalamka sida fasaxa Good Friday, si loo yareeyo baa la yidhi saamaynta degdega ee dhaqaalaha. halis ballaaran ayaase dagaalka dhulka ah uu abuuri karaya, kaasi oo taabanaya Mareykanka. inkastoo ay jiraan tilmaamo muujinaya suurtagalnimada weerar dhulka ah, haddana wargeysyada waaweyn waxay isku raaceen in hadallada soo noqnoqonaya Trump ay yihiin kuwo khatar badan oo aan meesha laga saari karin. khubaro hore oo ka soo dagaalamay Mareykanka oo u soo dagaalamay Mareykanka dagaalkan ka soo galay Vietnam, Ciraaq iyo Afghanistan waxay muujinayaan in dagaalka dhulka ee Aasiya waa qaaradaasi ay si fudud isugu rogi karaya dagaal daba dheeraada oo dhigbixiisa uu ballaarto Mareykankana saameyn weyn ku yeesha, taas oo mustaqbalka Trump ku qasbi doonta inuu ka qoomameeyo waxa uu sameeyo sida ay khubaradan tilmaamayaan. haddii aan eego wararka qubanayaasha ahna, maanta dalka Iran waxaa ka dhacay weeraro isdaba jooga, taasi oo ay qaadeen diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Israel. meelaha lagu soo warramayo in la weeraro waxaa ka mid ah gobolka Azerbaijan, iyadoo halkaasi 5 qof lagu dilay, tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay, sida uu tilmaamay hogaamiyaha gobolkaasi. qaramada midoobay ee hay'adaha caalamiguna waxay tilmaamayaan in 180,000 oo qoys oo reer Iirana ay waddankooda ka barakaceen maalmihii la soo dhaafay kaliya dagaalada halkaasi ka soconaya. ciidamada xisbiga ee waddanka Lebanon waxay ku dhawaaqeen inay daawaceen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israel oo duqeyn halkaasi ka sameynaysay. diyaaradda ayaa lala helay gantaal dhulka laga tuuray, laakiin mustaqbalkeeda lama caddayn meesha ay ku dambeysay. ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxay weerar ku qaadeen mid ka mid ah maraakiibta shidaalka ee maraya biyaha gacanka Khaliijka. waxay tilmaameen in markabkaasi uu soo gaaray khasaaro weyn. tani waxay muujinaysaa dagaalada ganacsiga haatan inuu u gudbayo oo dhibaatooyin xooggan ay ka imaanayaan. wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iran maanta waxay ku dhawaaqday Ayatollah Mujtaba Khamenei in markii ugu horeysay uu fariin u diray qaramada midoobay, isla markaana uu sheegay dagaalka Trump haddii aan xal loo helin inuu adduunka ka shalaayi doono. lama oga waxyaabaha rasmiga ee dowladda Iran ay arrintaasi uga gol leedahay.